waxaan kula kulmay dhalinyaro Soomaaliyeed markii ugu horreysay waxaan weydiinayaa magaciisa Abdulqaadir baa la yiraahdaa brother. Abdulqaadir halkee ka imaatay Waa xakiimada Germany. Germany ka imaatay adina magaca saaxib Waxa la yiraahdaa Cabdirashiid waxa ka mid Germany. Germany ka imaatay adina magaca saaxib أي معي واحد أنا سعيد عليه. su'aasha ay weydiinaa waxay tahay waxaad imaateen meeshan maxaad u imaateen Kulankan kulan dheer buu ahaa ka soo bilowday Jarmalka xadkiisa iyo France. Waana kulan kulmiyay qaxootiyada Yurub oo idil taa oo ay ku cadeynayaan dhibaatada ka haysata xagga sharciyada ama ha noqoto xagga shaqooyinka waxbarashada iyo dhibaatooyin kale. aad baa u mahadsan tahay waxaad imaateen meesha tan waa Brussels meeshaan joognaa waxaad ka imaateen waddanka la yiraahdo Germany maxaa ku soo dhoofteen ma dukumentiyaal leediin May wax dukumentiya dukumenti malidaadi may for example aniga hadaan iska qaado wax dukumentiya ma lihi dadka inta socdana intooda badan in dukumentiya ma laha waa dad dalal kala duwan ka yimid taa oo cadeynaysa in xorriyadooda ayaga u doodaya ama ka hadlaya xuquuqdooda ay yimaadaan halkan Brussels si ay ugu gudbiyaan shirka dhici doona eebaha duu qadaro 26ka bisha midowga Yurub wasiiradiisa arrimaha gudaha ku yeelan doona halkan Brussels dhibaatada haysata iyo waxa ku kalifay in socodkan dheer ee gaaray ilaa 500 kilomitir ay soo sameeyeen iyo ujeedka dhabta ee ka dambeeyay qiyaasaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inteeba soo marteen meelaha soo marteen maxaa kamid ah muddo badan baan soo soconay waxaanu sameynay socod aad u fara badan waxaanu ka soo bilownay Kyle waxaanu ku xigsiinay Strasbourg waxaanu tagnay magaaladii laga sameeyay xeerka Dublinka ee Shanghai waxa kale noo xigay inaan maanta halkan joogno anagoo ah dad bilaa waraaq ah waxaana keenay waxay tahay dhibkana haysta anaga maadaama aan nahay dad qaxootiyaala dhibkan oo ah dhib wada haysta dhammaan dadka qaxootiga ee jooga Yurub Soomaalida waxay ku maamahdaa ninkii seexdaa Saciidi badalay yani haddii dadku ay iska jiiftaan macnaha wuxuu soo kordhaya ma jiraan anaga hadda ka hor waxaanu hadda la soconaa ururkaasi ka hor maanu haysan wax baahiyaha aanu u baahanahay asaasiga sida waxbarashada maanu intooda badan dadku waxa weeyaan dad aan ku hadlin luqadda maanu awoodin inaanu la hadalno looyarada amba la xiriirno maanu awoodi jirin in maanta qofkiina laga qaadiyo aan ogaano kadib waxaanu iskugu tagnay meel kadib waxaanu samaysanay xafiis yar oo ay hay'ad uga caawisay anagoon waqtiga lahayn awood aanu xafiis ku kareysano hay'adaas waxyaabo badan iyaga laftoodu nala qabtay kadib markii ay hawshaas noo dhamaatay waxaanu helnay faa'iido aad u weyn maadaama dhibka Jarmalka yaala uu yahay in dadku bilaa waraaq yihiin in qof walba habeenkii xilliga la doono loogu soo dhaco gurigiisa oo la qaado taasoo keentay in dadku nin walba cabsidiisa halkiisa la jiifo kuna sugo inta loo imanayaan bal qaadayo sidii qof geeri sugayo kale laakiin alxamdulillah hadda waxaanu helay isbedel aad u weyn oo dhinacyo badana qofkii imika waxaan la bilaabay markii qofku uu bixi waayo in laga goosto xataa lacagtii yarada la siin jiray taasoo imika anaga markana laga jaro aan isla usbuuc gudihii lacagtiina loogu soo celiyo taasoo inaan nasiib u lahayn dadka kale ee degan gobolada kale sababtoo ah anagu waxaanu nahay dad macnaha isku tashaday oo isku tagay marka dadkana waxaan kula talin lahaa in farkali fool ma dhaqdo la isku tago wax la wada qabto imika kale anaga looyarada markaan ay nala balamaan oo kale malihin dad bixin kara lacag 2,000 euro 1,500 already waxa weyn aad la shaqaysid ayaa idiga bixiyo lacagaha looyarada Soomaaliya ayaga lacagaha looyarada naga sii bixiya marka qaarkood waxba xagga dambe kaga darnaa bana caawimay nagu sii siiyaan laakiin faa'iido aad u weyn baanu qabnaa maanta waxaan halkan u nimidnay inaanu shucuurteeda ka muujino maadaama aanu nahay dad dhibaataysan dad bilaa waraaqa ah badidoodu dadku ay yihiin bilaa waxbarasho nolosha caadiyanka inteeda badan qofkii hadii aanu luqadii garanayn aanu bulshadii dhex gari kareen intaasaan ku soo gabagabeeyay aad u maasta meesha tan maxaad u imaatay markii ugu horreysay waxaan doonayaa su'aasha inaan ku weydiiyo meesha tan maxaa u imaatay maxaas dadkaasi maxay u yimideen meesha inaad dadka u sharaxday dadka ku daawanaya kulli maxaan ku dhahay dadku maxaan ku dhibaato ay wada qabaan iyo maxaan ku dhahay sidii maxaan ku dhahay xusoo wada ay maxaan ku dhahay isku iman lahaayeen cabashadooda ay gudbin lahaayeen ay isku yimaadeen marka anigu kulli gaar ahaan hadan maxaan ku dhahay tan aan ka hadlo maxaan ku dhahay marxalada dhibtaan aan soo maray kulli dhowr waddo ma soo maray maxaan ku dhahay aan
dee saxaraa aanu soo maray markaa sidaa awgeed waxaan u socday meel nafteeda kafayn karaas inaan tago markaa waxa dhugmintahaan kuma soo gelin Yurub marka haddaan socdaalkayga ku soo ragaabiyo maxaan ku dhahay waxaan ka soo baxaynay Liibiya militariyanka badda in badan ku soo jirnay ilaa dhowr habeen ilaa 8 habeen ku soo jirnay badda markaa kadib Talyaani baan soo galnay Talyaani wax maxaan ku dhahay macaawimaana muslim waxa fariin buu naga dhigtay saawgeed baan soo dhaafnay waxaan noloshaada meel maxaan ku dhahay kafayn kartaa tag markaan dhowr bilood Talyaaniga aanu iska maxaan ku dhahay iska darbijibaan kadib markaa waxaan soo galnay Jarmalna markaan anigu aan tayada wili khaasan ka sii hadlo markii aan 2 bilood joogay ayuu igu yiri faraad leeday waan ku celinaya sidaa uga looyarad baan qabsay looyarad waxay ku tiri 500 euro ii qadina ku dooday markaa waxba maan looyaradii lacag markaa meen haynigu filan markaa sidaa ugeed dawladii ayaan tagay dawladii maxkamadan tagay maxkamadan waxba kuma hayna adiga markaa sidaa ugeed dadkan kulli tan aan qabo igala wada ismeyn markaa sidaa ugeed ayay isku yimaadeen meesha say maxaan ku dhahay ay aftidooda u dhiibtaan xuntinimeen la qaabilo marka urur ayaa ka tirsada adiga Soomaa oo meesha markaa ururkan oo ka tirsanay wax urur anaga naayra caawiyo weey hadii midka qof ay xagga dawladda dhibi kaga timaado kale way yara caawiyaan oo meelay geeyaan qaar kiniisadaha geeyaan kiniisanaga naga qaabilo markaa sidaa ugeed ururkan muhiimad weyn buu noogu fadhiyaa maxaan ku dhahay xagga macaawinimada su'aasha ugu dambayso aan ku weydiina waxay tahay dad badan oo waxa jira Soomaaliyeed oo doonaya inay soo aadaan wadamada Yurub ama badda inay soo maraan rabaan anaguna adikana hadda waxa meeshaan aad ka dhisateen guriyo macnaha sida u jeedo macnaha meesha tan adiga oo Yurub joogo oo raba meesha inaad jiifatid maxaad kula taleedahay qofka meeshaas ka soo dhoofay maanta wallahi ana waxaan la harto Soomaaliyeed maxaan ku dhahay amba ku jirtay inay soo baxaan amba dhexda ku soo jirta xabad waana baan u gudbin lahayn oo lahaa waxa dhaantaada oo Yurub ma socdaalka Yurub ku iman lahayd dalkaaga oo biimidu ku xabba markaa dee way arkaan anagii walaalahayoodi ka soo horeeyay Yurub joogna maanta inaan waxba ku haynoon derbida tigsanaan taandooyinka dhisano meelaha kale dhibaato badan qofku baraf iyo uu iska garanay marxaladu leeyahay Yurub maanta una aad daawan doona kulli maadaama arkayaan maxaad kula taleeyahay dadka Soomaaliyeed oo Jarmalka kula joogo naftigooda bilaa sharciga amaba haystaba sharci inay active noqdaan ururada ay ka mid noqdaan si dadka dhan ay ugu doodaan si oo qofku u dhahin aniga waxaan haystaa dokumentiisa darteed uma doodayo macnaha hawshiida qaaska ayaan ka shaqeynaya taaso dhib weey